السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. بعد تحية الإسلام، أحبتي في الله aad baan idin salaamayaa. Een, waxaan jeclaaday maanta maadaama anigu aan qorshe sameysanayay, waxaan jeclaaday maadaama qorshaha aan sameysanayo inaan idinkana idinla wadaago. Walow qofna ha ahaatee in uu dee uu arko xasuusin u noqoto uu isaguna qorshihii sameysto, anigana ajar ii noqoto. Intaasaa maqaayadeyda ugu weyn waa taas. Een, waxay nagu soo food leh bishii Ramadaan. Bishii Ramadaan baa inoo soo fooday nagu soo haysa. Maxaan qorsheysanay? Maxaynu diyaarsanay? Dad islaamaynu nahay alxamdulillaah. Maxaa inoo qorsheysan? Waa bishii raxmadda, waa bishii dambi dhaafka, waa bishii naarta la iska xoreynayay. Maxaa inoo qorsheysan? Yacnihii waa inaynu fikirnaa ilaahay wuxuu inoo siiyey caqliga inaynu fikirno. Ramadaantii hore haddii ay nagu dhaaftay laqwi iyo maxay toolay waxyaalo aan fiicnayn, ayna quraankii akhrin oo kale, ayna cibaadadii aynan dhamaysan oo kale, sidee baan ilaahayna subxaana wa tacaala ina soo gaadhsiiyey fursad ina siiyey fursad kale ina siiyey ku noolaano. Sidee baan uga faa'iidaysan karnaa bishan barakaysan ee Ramadaan? Markaa qorshahan sameysanayay ayaan is iri walaalahana uga faa'iideey. Ilaahayna ha iga dhigo liwajhi illaahi alkhaalis. Bishan Ramadaan maadaama ay nagu soo food leedahay qorshe waa inaynu yeelanaa. Qorshahaas oo ah cibaadaadkii sidee baan maxay toolay uga u sameysan karnaa cibaado aad u fara badan maadaama ay tahay bishii cibaadada, maadaama ay tahay bishii qur'aanka. Sidee baan matalan oo kale haddii aan ka gaabiyey bisha hore quraan tool waqtiga uga faa'iidaysan karaa waqtigu uu yar yahay. Gooray Ramadaan baxdayba maanta way bilaabmaysaa. In yar kadibna waa 29. Okay, sidee baan uga faa'iidaysan naxdintaasi sidee baan inoogu dhicin ay farxad inoogu dhamaataa inagoo cibaadaysanay oo Allah subxaana wa tacaala isku xidhnay oo qur'aankii in badan dhamaynay. Yacnihii mar walba waxaa fiican qofka kaa sareeya ee xagga cibaadaadka inaad ku dayato. Alxamdulillaah dad wanaagsan baan anigu la socdaa ay ugu horeyso walaalahay oo ku daydo mar kasta walaashay oo qur'aanka 6 jeer 7 jeer dhamaysa. Runtii way igu adkaan jirtay inaan 6 jeer 7 jeer dhameeyo qur'aanka amba 5 jeer. Waayo mar baan dirqi ku dhameyn jiray amba 2 jeer. Imika laakiin waxaan rabaa falyatanafas almutanaafisuun inaan tartan galo. Tartan lagu galana waxa ugu wanaagsan cibaadada Ilaahay subxaana wa tacaala. Waxay leedahay dhadhan gooniya marka tartan ku galayso cibaadada Allah subxaana wa tacaala khaasatan qur'aanka. Nafteeda waxaan ballan ku qaaday inaan dhameeyo qur'aanka ugu yaraan tii hore Ramadaantii hore intaan akhriyo in ka badan inaan akhriyo. Inaan cibaadadii sii la bilaabo taraawiixdii oo kale, tahajjudkii oo kale, inaan xoog u sii la bilaabo inta u sii badiyo. Dikrigii iyo dee isna ku jira marnaba ka maqnayn istighfaartii iyo saliga nabiga oo tan ku noolnahay ku soconaba ade. Marka tartan baynu galaynaa falyatanafas almutanaafisuun maadaama bishii qur'aanka ay tahay. Sidee baan qur'aanka u dhameyn karnaa mar 2 3 4 5 yacni tartankaas yaan lagaa badin ana yaan laga badinin waa inaynu qur'aanka isku daynaa inaynu 5 jeer 6 jeer dhameyno bisha Ramadaan barakeysan inagoo Allah subxaana wa tacaala wajigiisa ku akhriyo dee ikhlaas ilaah ka doonayno bilaadan inaan ka doonaynin. Hablaha afurka sameynaya oo kale waqti baad sameysan kartaa. Haddaad saamusa sameynayso kale mar walba saamusa ayaa iska dhib badan. Ramadaan intaanay soo gelin wada xash oo waxaad ugu tala gashaa talaagada inaad gelisood markaas aad sameyso maalintaas si aan waqti badan aanu kaaga cunin. Suxuurta oo kale isku wada karso. Yacnihii wax badan oo inoo fududeynaya hawsha waynu sameyn karnaa. Qorshe wax walba ku socda qorshe sameysano si aynu cibaadaadkii ugu soo day maxay toolay waqti badan ugu helno. Aynu qur'aankii waqti badan u siino maadaama ay bishii qur'aanka tahay anay ahayn bishii de maxay toolay amba shaqo de amba cunto amba wax kale walaal cunto iyo isku wareerino ma wanaagsana cunto iyo wax badan la isku wareeriyo wax yar oo de lagu afuro maxay toolay gaajada kaa biyown haddii aad cunto. Waa bishii Ramadaan waa bishii soonka maaha bishii cuntada waa bishii cibaadada. Aynu ka cibaadaysay cibaadada badina insha Allah. Qorshahayguna saas u ahaa tii hore haddaad ka gaabisay tan waa inaad ka gaabin waa in han yeelano hankeena waa inuu sareeyo hankeena cibaadadu waa inuu sareeyo. Allah subxaana wa tacaala dambi dhaaf inoo dambi dhaafo jannaadkiisa in la geeyo. Jannada Ilaahay waxaa la weydiistaa ta ugu sareysa
iyo ta u saraysana waxaa lagu gaari karaa masalado aad u fara badan waa in hankeenu noqdaa inuu inta sare gaadhno ilaah subxana watacaala weydiisano ilaah jannada ha lagu kalinsiiyo insha allahu tacaala khayrkana aynu isku baraarujino wixii aniga laiga faa'iideysan karo waan jeclahay in laiga faa'iideysto waxaan walaalka iyo walaasha ka faa'iideysan kara waan jeclahay inaan ka faa'iideysto ilaahina walwaji ilaahi alkhaalis ha inooga dhigo marka tartankaas aynu sameyneynaa فليتنافس المتنافسون يلا idinka badinin aniga yaa la iga badinin maadaama la iga badin jiray bilihii hore rabadaan amba mar amba laba jeer dhameyn jiray qur-aanka maanta waan usoo diyaar garoobay waxaan rabaa inaan la iga badin in aan 5 jeer 6 jeer dhameeyo qur-aanka hablo waxaa jiray la soo wadaago igu yiri qur-aanka ma garanayno akhriska walaahi taasina waa mushkilad waxaa isku daydaa walaashay macaan bisha rabadaan inaad qur-aanka barato aad bilowdo haddaadan hingaadi garanaynin hingaadi aad kasoo bilowdo aad sida maxay ku talay aad ku akhrido qur-aanka aad akhriyi karto qof walba qur-aanka akhriyi karaya waa inuu akhriyaa in badan waa inuu akhriyaa ilaahayna qur-aanka inoo fududiyo dhammaanteen ilaahay baana mahadda iska leh ina baray qur-aanka ina baray cibaadaadka ina baray wax walba oo maxay tahay allah subxana watacaala ugu dhawaanayno ducooyin aad u fara badan baa jira oo allah subxana watacaala loogu dhawaado waxaan noqonaynaa soddonkaa rabadaan dadkii ka faa'iidaystay insha allahu tacaala ciidda usoo gasho iyagoo habeenkii laylatul qadrigiina la kulmay insha allah biidni illaahi almawlaa waynu la kulmaynaa dhammaanteene waynu dadaalaynaa insha allah in aynu ciidda inoo soo gasho inagoo faraxsan min adaakhil ila alkhaarij markaas waxaan ku dadaalaynaa insha allah inagoo faraxsan inaynu ciidno markaynu ciidnana dalkiyaa lagaga sii harin qur-aankii halkaa laga sii wado insha allah ilaahay rabadaan hayna gaadhsiiyo intaa ka hadhay hayna gaadhsiiyo ilaahay naga dhiga kuwii ka faa'iidaysta insha allah biidni illaahi almawlaa kuwii wanaaga isfaraa xumaanta iska reeba dadka maxay toole caloosha isku haya isku caroonaya waxa wanaagsan intaan rabadaan soo gelin inaad ummadda ilaah hore iska wada cafiso weliba ay noo fiicanta habeen walbaynu seexanayno bili-aadanka o dhan iska cafino calooshayna faar ka dhigno aynaan qofbaba caloosha aynaan ku haynin mar walba qofku xumeeyaad arkaysaa qofku dulmiyaad arkaysaa qof waxba kugu sameey qofku xantaad arkaysaa allah subxaana watacaala ku daa mar walbana cafiska aynu barano cafiska waxa cafiska la yidhaahdo aad buu u wanaagsan yahay in calooshaad mar walbaad saafi ka dhigtaana aad bay u fiican tahay marka ilaahi subxaana watacaala rabadaanta haynagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo wax kastoo lagaa faa'iideysan karay wax kastoo walaalkaa iyo walaashaa kaa faa'iideysan karta aynu sameyno qorshahaana aynu bilowno intaan rabadaan soo gelin aynu noqono in hankoogu sareeyo falyatanafas almutanaafisuun